بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. cashirkeenu maanta wuxuu inooga bilaabanayaa xadiidkii maqbuulka ahaa. Maqbuulkiina waxaan u qaybinaynay labaynu soo qaadanay, xadiid saxiixa iyo xadiid xasana. Marka xadiidkii maqbuulka ahaa, in uma almaqbuulu in salima min almucaarada, haddii uu ka nabad galo wax mucaarada oo ka hor yimaada, fahuwa almuxkam. xadiidka noocaasa ee aan wax mucaarado lahayn waxaanu leenahay magaciisu waxa weeyaan almuxkam. waxaan tilmaantaasaynu siinayna, waxaan leenahay xadiidkan waa xadiid muxkam ah. micnaheedu waxa weeyaan wax khilaafsan ama ka soo horjeeda ma laha, xadiid mucaaradaya ma laha. kamid tusaale ahaan xadiidka inama alacmaalu binniyaat, xadiidkaas xadiid khilaafsan oo sunnada nebiga sal slam ku jira ma hayno. marka xadiid waxaan leenahay waa muxkam. sidaasoo kale qur-aankana wuxuu leeyahay aayado muxkam ah iyo aayado mutashaabiha. marka xadiidkii wax khilaafsan oo uusan jirin ee macnihiisu taagan yahay, sugan yahay, waxaan leenahay waa muxkam. muxkamna micnaheedu waxa weeyaan wax la sugay, marka hadalka ma taagna weyaan. wain curida bimilihi, maqbuulkii wain curida haddii lagu mucaarado lagala hor yimaado bimilihi mid u dhigma. maqbuulkii aynu intaynu dabagalnay baarno nir xadiidkan waa maqbuul, waa xadiid la qaadanayo, shuruuddii buu buuxiyey, shantii shardi xadiidka lagu qaadanayay, sanadkiisu waa xiriirsan yahay, qofka soo warinaya waa qof cadli ah, waa taamu dabd, xifdigiisu qof u buuxo ama in yar uu ka hoos dhacay suu xasan u noqdo, waa qof maxaa hayday shaad maaha. maxaa kaloo aynu soo marnay shantii shardi hadduu buuxiyo, isla isagii oo shantii shardi buuxiyey oo aynu waa maqbuul, darajadii maqbuulnimada aynu siinay, haddii mid kaloo maqbuul ah uu ka hor yimaado oo ay macnuhoodu iskhilaafsan yihiin, fain amkana haddii ay suuro gasho aljamcu in la isu keeno, macnahoodii in la kulmiyo oo la jamciyo la isqabadsiiyo haddii ay suuragal noqoto, xadiisyada noocana ee u muuqda inay iskhilaafsan yihiin laakiin macnahoodii la isu keeni karo la isqabadsiin karo, waxaa la yidhahdaa fahuwa mukhtalifu alxadiith. haddaynu helno laba xadiith oo labadiiba maqbuul yihiin laakiin u muuqda in ay iska hor imanayaan, xadiisyada noocaasa waxaa la yidhahdaa mukhtaliful xadiith. tilmaantaasay leeyihiin. kitaabo laga qoray ayaa jira. imaam shaafici baa wax ka qoray, ibnu qutayba wax ka qoray, imaam taxaawi oo caqiidatu taxaawiya aynu akhrisano ayaa isna kitaab ka qoray. marka waa qeyb ka mida cilmiga xadiidka oo la daraaseeyo oo kutub laga qoray weyaan. aw thabata almutaakhir, labadii xadiith ee maqbuulka ahaa ee iska hor yimid hadduu inoo sugnaado, thabata waxaa sugnaaday almutaakhir, koodii dambe, kii dambeeyey ayaa inoo sugnaaday. labadii xadiis baynu eegna, waxaan leenahay kan sanadkaasu ahaa, kanna sanadkaasu ahaa, labada kana dambeeyey. sida awgeed kii dambeeyey waxaan leenahay annaasikh, waa naasikh baan leenahay, kii horuu meesha ka saaraya, xukunkii kii hore uu waday ayuu tirtiraya, ka waa naasikh, kii horuu suulinaya, meesha dhan buu ka saaraya. walaakharu kii kale ee meesha laga saarayna wuxuu noqonayaa almansuukh. marka halkan waxaa nooga soo baxday qeyb kaloo xadiidka ka mid a naasikh iyo mansuukh. sidoo kalena qur-aankuna uu leeyahay maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha. labadii xadiid haddii ay u muuqda inay iska hor imanayaan, haddii aynu taariikhdoodii eegno oo aynu aragno midkood inuu kan kale ka dambeeyey, kii dambeeyey ayaa waxaanu siinaynaa magaca, waxaanu leenahay kana naasikh weeyaan, oo kii hore ayuu meesha ka saaraya oo xukunkiisii baabi'inaya. walaakharu kii horena waa kii la nasakhay, almansuukh weeyaan. marka wailaa haddii aynan garanaynin, taariikhdii ma garanayno, sida u kala horeeyana ma garanayno, fatarjiix waxaan sameynaa wax leeyahay tarjiixin. labadii miisaankan saarayna waxaan leenahay labadan keeba awood badan, labadan xadiid kii awood bata ayaanu leenahay kan ayaynu qaadanaynaa, kanna waa laga awood batay, waynu ka tagayna. waxyaalaha aynu tarjiixa ku samaynayno qeyb ka mida waan soo marnay oo ahayd keebaa taageero leh labadan xadiid, sida u kala saari karna, keebaa sanadkiisu awood badan yahay, keebaa matnigiisu awood badan yahay, keebaa leh xadiidyo kale oo sunnada ka mid oo taageeraya, keebaa leh aayado qur-aanka ka mid ah oo macnihiisa taageeraya iyo wixii la mida. yaa kala warinaya,
keebaa dadka warinaya ay ka badan yihiin ka kale, keebaa intaasoo jid lagu soo wariyey, keebaa hal jid lagu soo wariyey. Intaasoo dhan markaan isu geyno waxaan sameyn miisaanka saarno, wax la yidhahdo tarjiix ayaynu ku sameynaynaa. taas markaynu ka soo gudubno, haddii ay inoo suurto geli weydo, labadii xadiis baynu aagnay, waynu kala garan weynay, waynu isu keeni kari weynay, macnahoodi waa isqabatiin weynay. labadii xadiis baynu aagnay, naasikh iyo mansuukh keeba ah waynu garan weynay, waayo taariikhdoodii ma hayno. miisaankaynu saarna waxaan siin labadan xadiis kala saaraba oo kii xoog badan qaata, waa inoo kala soocmi waayeen. markaas waxaan sameynaynaa tuma tawaquf, labadii xadiisba waan ka joogsanaynaa, midkoodna qaadan mayno, waayo haddaan mid qaadano waynu kala saarnay, markaas tarjiix baynu sameynay. haddii inoo suurtoobi weydo oo sabab aynu ku kala saarno aynu heli weyno, labadoodaba meel baan iska dhigana, waxaan leenahay labadan xadiis inta ilaa u keenayo qof kala saara, halkaa haynoo yaalaan, saasaynu ku daynayn. marka casharkeennu insha allahu tacaala maanta intan ayuu ku saabsan yahay, labadan tuduc iyo magacyadan aanu tusaalayaal u keeni doono. marka xadiiskii waxaan leenahay haddii isagoo maqbuul ah, labadii xadiis iyagoo maqbuul ah iska hor yimaadaan, ay inoo suurto geli karto inaynu macnahoodii isqabadsiino, iswaafajinno, mukhtalifu lxadiis baa la yidhaahdaa. haddii xadiidku uusan lahayn wax ka hor imanaya, sida xadiiskan tilmaan inama alacmaalu binniyaat, xadiidka isagu waa almuxkam, waana sida ay xadiisyadu u badan yihiin. haddii aynu taariikhdii helno, kii hore iyo kii dambe say u kala horreeyaan aynu ogaano, waxaan leenahay kan hore waxaa meesha ka saaray oo xukunkiisi bedelay oo nasakhay kan cusub. kan cusub ee wax nasakhaya isaga waxaa la yihahda annaasikh, kii la nasakhay meesha laga saarayna almansuukh ayuu noqonay. haddii aynan taariikhda hayninna, waxaynu samaynaynaa tarjiixin baynu samaynaynaa, waynu kii awoodda badan ee rajaxan ayaynu qaadanaynaa. taas haddii inoo suurto geli weydana, waxaynu samaynaynaa in aynu ka istaagno, tawaquf baynu samaynaynaa, waayo arrintaas waxba waynu ka qaban kari weyne, waynu xallin kari weyne. xadiid kasta oo maqbuula oo aynu shuruudii buuxiyey, macnihiisu ma aha in markiiba xadiiskaas lagu dhaqmayo. inta xadiidkii aan lagu dhaqmin, waxaan eegaynaa marka hore, aynu u kala saaraynaa xadiis lagu dhaqmo iyo xadiisan lagu dhaqmin. xadiisya waxaa jira ansaxay oo shuruuddii buuxiyey, laakiin laguma camal falo. sababta aan lagu camal falina waxaa ka mid a qaarkood waa mansuukh, xadiid kalaa jira oo ka dambeeyey oo nasakhay, isagii oo saxiixa oo sugan ayaa haddana xadiid kale ka daba yimid, xukunkiisi meeshii uu ka baxay, sida awgeed laguma dhaqmayo. kaas waa mid. marka waa inaynu ogaano xadiisyadan maqbuulka aynu hayno, keebaa lagu dhaqmaya, keebaan lagu dhaqmayn. halkaas waxaa ka imanaysa markii qofkii inuu intan xadiisyada markiiba inta lagu ordo aan la dhihin anigu sunnada nebiga sala allahu alay slam iyo xadiisyadiisan toos ugu dhaqmaya, wadaadadan iyo fiqigooda iyo aragtiyahooda waxba kuma falayo. qofka hadduu saa yidhaahdo, waxyaalo badan oo dhibaato ayuu lagu halagelaya. xadiis uusan macnihiisaba fahmin, oo laga yaabo inaan culimmadii hore islaamka xadiis iyo aqoontiisa iyo alla kacabsi si kastaba qofka ugu horreeyey inay inta eegeen yahay xadiiskan laguma dhaqmayo, inuu qofku intuu ka boodi anigu kaasaan ku dhaqmaya, xoogay jaahilnimo ayaa meeshaas ka muuqata. marka xadiidkii waxaynu u kala qaybinaynaa labo. waxaanu leenahay xadiidka maqbuulka waxaanu leenahay qaarkood waa xadiis macmuul bihi ah, waa mid lagu dhaqmayo, iyo gayr macmuul bihi, xadiis aan lagu dhaqmaynin. maxaynu ku keenaynaa markaa? waxaynu ku keenaynaa intii hadda inoo tilmaamay iyo magacyadii ayaynu ku dabaqaynaa. inta waxaan leenahay xadiidku markuu maqbuul yahay, hadduu wax mucaarada ka badbaado, in salima min almucaarada, oo xadiid kale oo lid ku ahi uusan jirin, xadiidkaas waxa weeyaan waa muxkam. halkaasaynu dhiganaynaa, waan ku dhaqmaynaa, maxay hayday aan ku camal falaynaa, wuxuu inoo sheegay inuu qaadanaynaa. xadiidkaas waa xadiis muxkama, sida xadiiska inama alacmaalu binniyaat. haddii xadiidku uu leeyahay wax mucaarada, xadiid kaloo ka lid ku ah baa meesha yaalla, xadiidka waxaan leenahay marka xadiidkan kale ee mucaaradka ahi isaguma maqbuul ba mise waa marduud. xadiid maqbuulaan haynaa, xadiidkan mucaarada ee ka hor yimid ma marduud ba oo lamaba qaadanaya asalkiisa, mise waa maqbuul u dhigma. hadduu marduud yahay, xadiid saxiixa ayaa waxaa ka hor yimid xadiid daciifa, waxaan leenahay xadiidkan daciifka awalkiisa horeba lama qaadanaynin, wax saameyna kuma yeelanayo,
xadiidka maqbuulka marka meeshaasaan kaga hadhayna isagana labadii markay maqbuul yihiin ayna ismucaaradeen iska hor yimaadeen su-aasha xitaa waxay tahay labadan ma isqabadsiin karnaa ma iswaafajin karnaa macnahoodii ma isu keeni karnaa haddii aynu isu keeni karna macnahoodii isqabadsiin karno waxaa la yidhaha mukhtalif alxadiis noocaas marka laba xadiis oo maqbuula oo macnahoodii iska hor imanayo haddii aynu hayno labada xadiis waxaanu leenahay mukhtalif alxadiis ba dhinacaas noocaas la yidhaahdaa waxaan sidan sheegay imaam shaafici ibnu qutayba taxaawi iyo culimo kale ayaa kitaabo ka qoray halkaas qofkii raba inuu faahfaahintooda sii akhristo uu ka heli karaa inteeni kitaabka risaalada isla soo akhriyeyna waynu soo aragnay imaam shaafici raximah allahu tacaala oo xadiisiyo badan oo noocaas ah u jid bixinaya oo tusinaya qaabka ay laisu waafajin karo iyo inaysan iska hor imanaynin toona inoo sheegay labada xadiis macnahooda in laysu keeni karo laisqabadsiin karo meelaha ka imanayaan kuwii aan laisqabadsiin karinna sababaha aan laysu qabadsiin karin ayaynu kusoo marnay haddii marka aan laisqabadsiin karin haddii laisqabadsiin karo waxaan mukhtalif alxadiis haddii aan laisqabadsiin karin taariikhdii labada xadiis ma haynaa haddii aynu taariikhdii hayno kii dambe waxaan leenahay kan waa naasikh yacni xadiidkii ka horreeyey ayuu tirtiraya meesha ka saaraya haddii xadiidka kii hore uu xukunka si u sheegay kan dambena si kale u sheegay kan dambe ayaa la qaadanaya kii hore xukunkiisi meeshii uu ka baxay waa laga saaray kii hore marka waxaan leenahay waa mansuukh waa kii la nasakhay ee la tirtiray maxaa naasikha maxaa mansuukha sida lagu ogaado faahfaahinteeda waa cilmiga usuul fiqiga halkaas marka labadii cilmi xadkii ay iska gelayeen baynu haddana mar kale aynu nimid waxaan ku soo marnay xadiidka mutawaatirka ah iyo shuruuddiisa iyo qaabka loola dhaqmayo waxaan nidhi wixii aaxaad ah unbaa cilmi xadiidka lagu dhigtaa mutawaatir hadduu yahayba toos wuxuu u gelayaa usuul fiqi halkaasaynu kaga hadhaynaa sidoo kale muxuu faa'iideynayaa xadiidku waan soo marnay cilmi dhanni ah iyo cilmi yaqiini ah waxaan nidhi taasna faahfaahinteeda waa usuul fiqiga marka usuul fiqiga baynu arrimahaas u riixaynaa haddii marka taariikhdii aynu garan weyno haddii aynu garan weyno keebaa horreeyey keebaa dambeeyey aynan taariikhdii haynin ma ku kala saari karaan siday u kala awood badan yihiin sanadkooda xadiidka markaan eegno silsiladii lagu soo wariyey iyo kan kale silsiladii lagu soo wariyey halkaas ma ku kala saari karnaa labadaas haddii aynan ku kala saari karin macnaha ay xambaarsan yihiin matniga xadiidka iyo fariinta uu sido intaynu eegno xadiisyadii kale ee u dhigmayay ama haddaynu taabicu helno sida haddaynu mutaabicu helno haddaynu shaahid u helno iyo wixii lamida ku kala saari karna marka waxaynu eegaynaa xadiidka sanadkiisi iyo matnigiisi kan yaa warinaya kanna yaa warinaya waxyaalahaynu ka soo hadalnay waxaa ka mid ahayd xadiisyadu markay iska hor imanayaan waxyaalaan ku kala saari karno qaraa'inta waxaa ka mid a xadiis bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen iyo xadiis cid kale soo warisay kan bukhaari iyo muslim ayaa awood badnaanaya haddii bukhaari iyo muslim aysan soo warinin laakiin cid kale soo warisay laakiin lagu soo wariyey shardigood shardiga maxaanu nidhi dadkii ay bukhaari iyo muslim xadiiska ka soo warinayeen ayaa kana laga soo wariyey laakiin saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim midna kuma qorno marka xadiisyada arrimihii baynu dib ula noqonaynaa oo aynu ku kala saarayna marka taas ma samayn karnaa ma ku kala saari karnaa isnaadkoodii iyo matnigoodii haddii aynu ku kala saari karno sidaas waxaynu samaynaynaa tarjiix wax la yidhaahdo tarjiix waxaan leenahay kana raajixa aynu qaadanaynaa kan kalena waa marjuux waa laga awood batay waan ka tegaynaa haddii aysan taasi suuragal ahayn siduu inoo sheegay thumma tawaquf waan ka joogsanayna haddii aynan tarjiixin samayn karin oo sanadkii iyo matnigii midna aynan ku kala saari karin oo aynu kii awoodda badan la soo bixi karin waynu ka joogsanayna labadoodaba meel baynu iska dhigana waxaan leenahay ilaahay inta ilaahay usoo saaray qof labadan u jid bixiya halkaas aynu ku daynina waxaa imanaysa haddaba xadiisyadii sidan markay yihiin maxaa keenaya maxaa sabab u ah sidan oo kale in xadiisyadu iska hor yimaadaan ama ay u muuqdaan inay iska hor iman karaan kitaabka risaalada waxaan ku soo marnay imaamu shaafici raximah allahu tacaala su-aasha markii la weydiiyey la yidhi xadiisyada qaar marka qaar waxay u muuqdaan inay iska hor imanayaan maxaa keenaya inaad midna qaaditaan midna aad ka tagtaan ood ku dhaqantaan midna ku dhaqantaan midna aydan ku dhaqmin imaamku wuxuu yidhi raximah allahu tacaala nebiga horta marki horeba warkiisu sinaba isaga hor iman maayo nebiga sala allahu calayhi wasalam warka laga soo wariyey iyo waxyaalihii uu sheegay sinaba isuma khilaafi karaan iskamana hor iman karaan
taas meelaan dhigano. Sababaha keeni kara ayuu marka inoo sheegayaa in xadiisyadii ay u muuqdaan inay iskhilaafsan yihiin. mar waxaa dhici karta qofkii xadiidka nebiga sal ly slam ka soo wariyey inuu warkii qayb ka mida uu maqlay. iyadoo nebigu sala allahu alay wasalam su-aal la weydiiyey ayaa su-aashii isagoon weli ka jawaabin ayaa laga yaaba qof inuu golihii yimid, su-aashii jawaabteedii uu maqlay, su-aashiina ay dhaaftay. marka warkii uu soo wariyey waxbaa ka maqan, xaqiiqadii warka iyo waxa nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka jawaabayo ma hayno markaas oo kale hadduu qofka uu soo wariyey. waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood in laba qof midkoodba oo meeshii wada joogay warkii wada maqlayey, midba qayb ka mid ah sabab gaara inuu u sheegay. waxaa laga yaabaa qofkan xadiidka saxaabigii joogay ciddii ka warisay dhacdadaas in uu u sheegay intii ay u baahnayd ee kaga saabsanayd xadiidkaas, intii kalena uusan sheegin, waayo markaas looma baahnayn. aan mar kale isku soo bilaabo, kuwii baa naga dhex galay. marka imaam shaafici raximah allahu tacaala markii la weydiiyey sababta keenaysa in xadiisyada ay marmarka qaar u muuqdaan inay iskhilaafsan yihiin, waxaa marka hore ku bilaabay in aysan suurtagal ahayn nebiga sala allahu alay wasalam warkiisa iyo sunnadiisu inay marnaba iska hor timaado o iskhilaafto. laakiin waxyaalaha keeni kara marmarka qaarkood xadiisyadii inay u muuqdaan inay iska hor imanayaan waxaa ka mid a qofkii soo tabiyey ayaa laga yaabaa inuu warkii oo dhammaystiran sheego, mid kalena waxaa laga yaabaa warkii oo aan dhammaystirnayn oo kala dhiman inuu qayb uun inoo sheego, ama uu macno ahaan uun warkii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ku sheego. sida awgeed xaqiiqadii warkii waxba ka kala dhiman. haddii meelaha qaarkood warkii loo adeegsado waxaa imanaysa in aan warkii oo dhammaystiran oo buuxa oo siduu ahaa nebiga sal ly slam looga maqlay aan ahayn inaynu helno. waxaa kaloo dhici karta in qofkii nebiga sala allahu alay slam warkan ka maqlay uu warka qayb ka mid ah uun maqlay ee intii kale ay dhaaftay. xadiis baa jira nebiga sala allahu alay slam uu u yimid oo su-aal weydiiyey, nebiga sal ly slam uma jawaabin, ninkuu iska fadhiistay cabaar kabacdi ayuu nebiga sal ly slam yidhi ninkii su-aasha weydiinaya meeye, markaasuu jawaabay. marka intii u dhaxaysay hadduu qof golaha iman lahaa oo isagoo su-aashii ay dhaaftay uu warkii jawaabtii nebiga sal ly slam intuu maqlo uu sheego, qof kale oo labadii su-aashii iyo jawaabtiiba isla maqlayeyna uu isna sheego, waxaa dhici karta in si kala duwan warka uu soo baxo. taas buu imaam shaafici wuxuu leeyahay marmarka qaarkood waxay keeni kartaa in labadii xadiis loo arko inay yihiin laba xadiis oo iska hor imaanaya oo iskhilaafsan, waayo midna wuu kala dhiman yahay, midna wuu dhammaystiran yahay, ama midkoodba qayb unbuu sheegayaye midna ma sheegayo warkii oo wada dhammaystiran oo israacsan. waxaa dhacday in nebiga sala allahu alay wasalam uu arrin sunna uu si u jideeyo. tusaale ahaan nebiga sal slam wuxuu yii idaa ataytum alghaayid, markaad xaajo gudanaysaan musqusha tagtaan falaa tastaqbilu alqiblata bigaa'itin walaa bowl, qiblada kaadi iyo saxaro midna hawla jeesanina. xadiid kale oo nebiga sala allahu alayh wasalam sunno kale oo nebiga sal slam waxa weeyaan in cabdillaahi ibni cumar uu maalin guriga dushiisa koray, gurigii walaashii umulmuminiin xafsa, marka wuxuu arkay nebiga sala allahu alayh wasalam oo musqusho ku jira oo u jeeda dhanka shaam baytulmaqdis, qibladuna ay dhabarkiisa tahay. nebigu sal slam soo hore uma oranin qiblada ha u jeesanina, dhabarkana ha u jeedinina. isagii baa la arkay oo dhabarkiisu uu u jeeda dhankii qiblada. ma iska hor imanayaan? iskama hor imanayaan, way u muuqata inay iska hor imanayaan. sideebay dadka markay u arkaan labada inay iska hor imanayaan waa in xal loo raadiyo, labadii xadiis sidii la isu waafajin lahaa in la keeno. labada xadiis waxay noqonayaan sidaynu soo marnay mukhtalifu alxadiis. haddii aynu ogaano kee horeeyey kee dambeeyey waxaanu dhihi karnaa way isnasakheen, laakiin uma baahanayno kan, waayo xaaladda labadan xadiis ayaa kala duwan. midna wuxuu ku saabsan yahay baa culimmadu yidhaahdeen markii bannaanka la joogo, qofku bannaanka uu joogo oo gidaar iyo wax ku gudban aysan jirin, markaas waxaa la rabaa inuusan qofku qibladii u jeesanin, dhabarkana u jeedinin. markuu laakiin musqul ku jiro dhisan oo gidaara leh dhibaato ma laha, sida nebiga sal ly slam ma aan ka aragno. si aanu ku jamcin karno labadii xadiis aan macnahooda isku waafajin karno, taas waa mid. haddii marka dadkii xadiidka maqlayey, waxaa laga yaabaa xadiidka nebiga sal ly slam dadkii ka maqlayay inuu xukun sheegay, xukunkaasina uu xalaaleynayey ama uu xaaraameynayey.
haddana arrinkaas guud ee uu sheegay qayb ka mid ah in uu xukun gaara nebigu sala allahu alay wasalam siiyey. xadiisyadan soo marnay waxaa ka mid ahaa inuu nebigu sala allah aynu afwan kitaabkii risaalada ku jiray intayna qaadatay, nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu diiday beecyada qaar ka mid ah waxyaalihii siyaabihii ay carabta wax u kala iibsan jirtay qaar ka mid ah ayuu nebigu sala allahu alay wasalam nahiyey saa la samaynin. markii la weydiisanayay kuwan waan u baahannahay ama qof uu si eh, su-aal ka weydiiyey nebiga sala allahu alay wasalam, wuxuu sameeyey qeybtii uu qofkaasi weydiiyey in loo ogolaaday. baycul caraaya baa ka mid a aan soo marnay ahayd qofkii maadaama timirta markay geedka ka soo go'do ay xoogay yara qalasho way ka duwan tahay, miisaankeedina wuu isbedelayaa marka loo barbar dhigo timirtii hadda cusbayd ee geedka ka soo go'day rutabka ahayd. marka maadaama miisaankii isdhimayo, rutab iyo timir caadi laiskuma iibin karo nebigu sala allahu alay wasalam. laakiin qofkii timir haystay ee xiiseynayay timirta cusub ee hadda soo go'da inuu reerka u keeno ciyaalka uu siisto, qofkaas in gaara baa loo ogolaaday. marka xukunkii guud ee xaaraamaynta waxaa laga soo reebaya intan yar ee nebigu sala allahu alay wasalam uu u ogolaaday baycul caraayada. taas maadaama la ogolaaday lama dhihi karo waa iska hor imanayaan. waxaan leenahay xaaraamayntu waa arrintaa guud, intan yarna si gaara loo ogolaaday, marka isma khilaafayaan labadiiba saasoo loo kala saaraya, ismana khilaafayaan. haddii marka aynu tusaale aynu soo qaadano xadiisyadan ah sida la isu waafajin karo, nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaa jira xadiidkan laga soo warinayo si fiicanna waaratan baan rajeynaya. marka tusaale naasikha iyo mansuukha ah oo aynu labadii xadiid kaga saaran iska horimaadkii, oo aynu caddaynayno in aysan iska hor imanaynin arrin kale ay jirto oo sunnada nebiga sal ll slam iskhilaafaynin. waxaa ka mid ah xadiisyadan ina hor yaalla. xadiidka hore waxaa laga soo warinayaa cali radia allahu canhu in nin la tukaday salaadii ciidda, markaasuu udxiyadii weeyaan ciid uladxaa, wuxuu yidhi waxaan la tukaday cali bn abi aalib radia allahu canhu, waxaana maqlay isaga oo leh laa ya'kulanna axadukum min laxmi nusukihi bacda halaath. midkiin markuu udxiyaysto hilibkaas nusugiisa hilibkaas 3 maalmood ka badan yuusan haysanin. hilibkii wixii 3 maalmood ka badan waa inaad sadaqaysatid, lama haysan kartid. xadiid kaloo isna cali laga soo warinayo ayaa wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa ya'kulanna axadukum min laxmi nusukihi bacda halaath. hilibkii udxiyada aad qalatay waxba ha ka cunin 3 maalmood ka bacdi. marka intii dheeraadka ku ah 3daa maalmood waa inaad bixisid ood masaakiinta siisid ood sadaqaysid. marka xadiidkan uu cali radi allahu canhu inoo werinayo dadkana uu usii sheegayo, wuxuu diidayaa qofku hilibka udxiyada 3 maalmood ka badan inuu kaydsado, intii 3 maalmood ku dheeraada inuu sadaqaysto. waxaa jira xadiid kale oo laga soo warinayo anas ibni malik radi allahu canhu uu leeyahay inaa lanadbaxu maa shaa allahu min daxaayana, udxiyadayada insha allah maa sha allah wixii alla noo doonaanu qalanaynaa, uma natazawadu baqiyataha ila albasra, intii noo soo hadhay sahay ahaan baan u qaadanayna ilaa aanu basro tegayno. marka meeshuu magaaladu ka yimid intuu dib ugaga noqonayo hilib ku filan oo uu jidka ku sii maro sahay ka dhigto, ayuu ilahay waan sii qaadanayna. labadan xadiid labada saxaabi kale warinayaan way iskhilaafsan yihiin. oo cabdilaahi anas ibni malik isagu wuxuu leeyahy udxiyadii 3 maalmood ka badan waa la cuni karaa. calina wuxuu leeyahay nebiga sal slam waxaan ka maqlay inaan la cuni karin 3 maalmood ka badan. waxaa ka muuqda halkaas inay labadii xadiid iska hor imanayaan oo iskhilaafsan yihiin. midna waa diidmo, midna waa ogolaansho. laakiin waxaynu haynaa imaam shaafici muu dhihin marmarka qaarkood waxa keenaya in labadii xadiid loo arkay inay iskhilaafsan yihiin waa in aysan dhammaystirnayn ama si dhammaystiran warkii usoo gudbinine midba qeyb ka mida laga yaabo inuu maqlay oo intii uu maqlay uu soo gudbiyey. marka warkii uu kala dhiman yahay waxbaa ka maqan. warkii oo dhammaystiran waxaa inoo soo warisay caaisha radia allahu canha, waxay tiri imaam shaafici baa soo warinaya cabdillaahi ibni cumar qaala nahaa rasuulu llahi can akli luxuumi daxaaya bacda halaath.
nebigu sal ly slam wuxuu nahiyey hilibka udxiyada in la cuno 3 maalmood ka bacdi. intii kugu dheeraada 3 maalmood waa inaad sadaqaysatid. qaala cabdillaahi bn abi bakr fadakartu dalika licamrata faqaala sadaqa, run buu sheegay markii warkaa loo sheegay. samictu caaishata taquul, waxaan maqlay caaisha oo leh dafa naasun min ahli lbaadiyati xadrata aladxa fi zamaani nabi sal slam. daday abaar ku dhacday, dad baadiyihii joogay abaar inta ku dhacday ayay magaaladii yimaadeen. faqaala الnabiyu idakhiruu lihalaath watasadaquu bima baqiya. nabi sal slam wuxuu yidhi qof walaba udxiyadaad qalatay 3 maalmood wax kugu filan kaydso, inta kale kugu dheeraadka ana sadaqayso. qaalat waxay tidhi falamaa kaana bacda dalika, wixii intaa ka dambeeyey sanadkaasi markuu gudbay, ayaa qiila waxaa li yaa rasuula allah laqad kaana annaasu yantaficuuna bidaxaayaahum. rasuulka allo dadku udxiyadooda way intifaacsan jireen oo waxbay ku qabsan jireen, adiguna waxaa tiri dee udxiyadii 3 maalmood ka badan yaan la haysanin, marka maxaa xala, maxaa samaynaa? markanuu nebigu sala allahu alay slam wuxuu sheegay sababtii keentay labadan xadiis. waxa meesha ka maqan, faahfaahinta dheeraadka ka maqan waxay ahayd sababta nebigu sala allahu alayh wasalam 3 maalmood ka badan uu u diiday inay ahayd dadkii masaakiinta ahaa ee yimid. inamaa nahaytukum min ajli daafa alatii dafat xadrata aladxa fakuluu watasadaquu waddakhiru. dadkii abaartu ku dhacday ee baahidu inoo keentay ayaan dartood saas u idhiye, sadaqaysta, kaydsada, cuna, xor baa tihiin. marka halkan nebigu sal ly slam wuxuu ku cadaynayaa sababtii keentay nahyigaas inuusan ahayn inuu ka xaaraameynaye, uu xilligan dadka dhibaataysan ay yimaadeen, uu lahaa qof walooba 3 maalmoodee ciidda wixii aad cuni lahayd kaydso, inta kalena dadkan ku sadaqayso oo dadkan baahida ha ka baxaane, dadkan hala baahi tiro oo hilibka dheeraadka hala siiyo. marka xadiidkan caaisha ee si cad inoo tusaya naasikhi iyo mansuukhi oo cad, xukunkii hore iyo sababtii ku yimid iyo sababtii loo tirtiray. intan dambe fakuluu watasadaquu waddakhiru waxay baabi'inaysaa meeshii ahayd inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu nahiyey 3 maalmood ka badan in aan la kaydsan karin hilibka. marka laa ya'kulanna axadukum min laxmi nusuki bacda 3 waa mansuukh, waa la nasakhay. maxaa nasakhay? fakuluu watasadaquu waddakhiru, cuna, sadaqaysta oo kaydsada. waa xadiidkan caaisha radi allahu canha waa xadiid dhammaystiran oo arrintii oo dhan inoogu sheegaya sidii ay ku timid. imaam shaafici marka wuxuu leeyahay raximah allahu tacaala, xadiidkan caaisha waa xadiidka dhammaystiran ee maxfuudka ah. sida maxfuudka ee sugan waxa weeyaan awalkii sheekada iyo aakhirkeedii wixii oo dhan, sababtii xaaraamaynta, sababtii xalaalaynta, wixii oo dhan inoo sheegaysa waa xadiidkan caaisha. waana min abyani maa yuujadu fi naasikh walmansukh. xadiisyada naasikha iyo mansukha kuwa ugu cad si fiican loo fahmayo biyo dhacooda ayuu ka mid yahay, ayuu ina leeyahay imaam shaafici raximah allahu tacaala. marka xadiidkan waa tusaale cad anu isticmaali karno xadiisyadaas kale iyo sida ay ku iman karto inay u muuqdaan inay iska hor imanayaan. taasoo imaam shaafici uu leeyahay waxba inaga maqan, macluumaadkii ayaa qeyb inaga maqan yihiin oo warkii lama soo wada tabinin. waxaa kaloo dhici karta ayuu leeyahay imaam shaafici raximah allahu tacaala, qofkan soo warinaya inuu khaldamay baa dhici karta, inuu wax ismoodsiiyey, waxooga ismoodsiisa uu meesha ku jirin waa dhici karta. qof waa bani aadam uu khaldami karaa. markay yimaadaan xadiisyo u muuqda inay iska hor imanayaan, haddii aynu u jid bixin kari weyno, waxaa imaanaysa mid in uu khalad wariyaha ka yimidba uu yahay oo aysan jirin si kaloo lagu xallin karo, ama in macluumaadkii qayb ka mid a inaga maqan tahay oo aynan haynin, sida awgeedna aynan arrintaas u xallin karin. laakiin inta badan wuxuu leeyahay haddii aan dabagal ku samayno waan awoodnaa labada xadiis inaan isqabadsiino oo aan iswaafajino warkooda, oon mid walba meesha uu ku saabsan yahay iyo macnihiisa saxda aanu siino, inagoo aan tuuraynin midka kale. laakiin haddii ay suuro geli weydo, aan soo marnay inaan ka joogsanayno labadoodiba aanu daynayno. haddii aynan ka joogsanaynin waxaan samayn karnaa tarjiix. labadii baan miisaan saaraynaa, koodii xooga badan ayaynu qaadanaynaa. marka kaasna bal aynu isla eegno laba xadiisyo kala duwan. tarjiixa markaan xadiisyada miisaanka saarayna waxaa ka mid a xadiidkan abu saciidin alkhudri. wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam ka warinaya, nabigu sal ly slam wuxuu yihi dahab
الذهب marka la iibinayo waa inay isla ekaadaan laa tabiicu الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل haddaad dahab ku iibinaysid labada dahab 100 gram iyo 100 gram waa inay isla ekaadaan ma kala badnaan karaan haddii ay kala badnaadaan waxaad gashay wax la yihahdo riba alfadl ribadii wax isdheeraanta ayay noqonaysaa timir haddii timir lagu iibinayo waa inay isla ekaadaan haddii maxaa yidhi fidadii haddii fidada qalin lagu iibinayo waa inay isla ekaadaan aysan waxba isdheeraanin sidoo kale waa in gacanta lagu kala qaato ma kale la kala wareego dib looma dhigi karo marka ribadii waxyaalaha ay soo gasho waxay ku soo geli kartaa labadii wax isku nooc ah inay wax isdheer yihiin oo tusaale ahaan uu yihahdo qofkani dahabkan waa dahab cusub kana waa dahab hore 100 garaam kana waxaad igaga iibsataa 110 kan ah lama ogola wax inay isdheeraadaan lama ogola sidoo kale hadda kan adigu qaado kan kalena dib baan kaa siinayaana lama ogola marka waxyaalaha ribadu gasho waa in ay isla eg yihiin waana in markaas la kala qaato xadiidka saas xadiidkii nabiga sala allahu alay wasalam lagaga soo wariyey hal xadiid maahana kan kalena waa kan diinaarka diinaar baa lagu iibinaya dirhamkana dirham baa lagu iibinaya laa fadla baynahuma in wax isdheeraadaan maaha tanna waa sidaas oo kale nabigu sala allahu alay wasalam saasuu noo dardaarmay inaan diinaarkii diinaar ku iibino dirhamkiina dirham ku iibino oo aysan laa fadla baynahuma waxba isdheeraanin waana hada cahdu nabiyina ilayna wa cahduna ilaykum nabigu sala allahu alay slam saasuu noo dardaarmay annaguna saasaan idin dardaarmayna waxaa laga wariyey cuthmaan ibni cafaan cubaadat ibni saamit sidoo kale in dahabka lagu iibinayey in wax la isdheeraysiiyo inaan la ogolayn inay tahayna markaas in la kala qaato intaasoo xadiis ayaa culimadii iyo imaam shaafici tilmaamaya culimadii u yaqaan cilmi ka soo gaaray inay kala qaateen oo ku dhaqmayeen laakiin waxaa jira xadiis laga soo wariyey cabdillaahi ibni cabaas radia allahu canhu uu leeyahay akhbaranii usaama ibnu zayd usaama ibnu zayd baa wuxuu yidhi inama ariba fi nasiya inay wax isdheeraadaan ribadu ma ahee ribadu waxa weeyaan ta dib loo dhigay ka dahabkii haddaan 100 garaam 110 kaaga iibsado waa iska caadi laakiin waxaan la ogolayn in dahabka aynu kala iibsanay aad tirahayd dib baan kaa siinaya kan hadda isii waa inaan marka haddaan kala qaadano kan waa la ogolyahay wule dibdhigaas ayaa la diidayaa ayuu xadiidkani tilmaamaya xadiidkani wuxuu khilaafsan yahay intan kale oo dhan ayuu ka hor imanaya marka sidee maxaynu samaynayna waa inuu miisaankaynu saaraya waynu kala rajaxaynaa kii aynu qaadanayna imaam shaafici raximah allahu tacaala waxa uu leeyahay usaama maxaa keenay inay sidan u kala duwanaadaan wuxuu leeyahay usaama waxaa dhici karta in nabiga sala allahu aleyh wasalam la weydiiyey laba wax oo kala duwan labadii waxaa kala duwanaa sidii dahab iyo fida laysku iibinayo ama timir iyo xinda laysku iibinayo iyo wax lamid marka nebiga sala allahu alay wasalam su-aashii la weydiiyey ayaa wuxuu ka maqlay uun inama ariba fi nasiyat midda dib loo dhigay baa ribo ahe waxaa ka maqan qaybtii hore ayaa ka maqnaan karta ayuu le imaam shaafici raximah allahu tacaala sababta keenaysa inuu sidan u soo wariyey taas bay noqon kartaa oo uusan su-aashii haynine jawaabtii uun uu maqlay jawaabtuna aysanba ku saabsanayn sidan uu cabdillahi bin cabaas u daliishanayo ee ahayd si kale marka khaladku halkaas ayuu ka iman karaa ayuu leeyahy imaam shaafici raximah allahu tacaala midaan u soconno taasma waxaan u soconna waxa weeyaan waxyaalaha uu leeyahay imaam shaafici aanu isticmaalno si aan u kala rajaxno maxaynu isticmaalaynaa inaynu xoojinno mid aanu kii kale kaga marjuux ka dhigno marka wuxuu leeyahay imaam shaafici raximah allahu tacaala kullu waaxidin miman rawaa khilaafa usaama dadka usaama xadiidka ku khilaafay sidan uu u wariyey sida ka duwan usoo wariyey dhammaantood xifdi markay noqoto usaama kama xifdi fiicnaan dadkan o dhan marka ma dhihi karno dadkan xifdigooda wuu hooseeyaaye usaamaynu qaadanayna kulligood waa dad xifdigooda lagu kalsoon yahay waa cuthmaan ibnu cafaan iyo cubaada ibnu saamit ashaddu taqaduman bisini wasuxbati min usaama usaama way ka wen yihiin hortii bayna saxaabo ahaayeen marka taas horta iyagaa dheer da ahaan bay ka weyn yihiin saxaabinimaday kaga horeeyeen abu hureyrana wuu ka weyn yahay dadka xadiidka wariyana waaba ninka ugu xifdiga wanaagsan marka abu hureyra iyo cubaada ibnu saamit iyo cuthmaan ibnu cafaan haddaan halkan dhigno dhinacanna aan dhigno usaama waxaan qaadanaynaa saddexdan waxay soo wariyeen usaama keligiina waan ka tegana waa iyagaa ka da'weyn dhanka aqoonta iyagaa kaga horeeya saxaabinimadii
cubaade iyo cuthmaan ayaa kaga horreeyey usaama sidoo kale marka wuxuu leeyahay walama kaana xadiisu ithnayn awlaa fi daahiri bilxifd laba wax wixii ay isku raaceen ayaa xifdigeedu inuu sugan yahay ka mudan wixii hal qof soo wariyey laba qof inay khaldamaan ayaa ka adag hal qof inuu khaldamo marka waa meeshii soomaalida lahayd wadar iyo waaxid wuxuu leeyahy kaana xadiiثu الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه dadkii xadiidkan soo warinayay ee xifdigooda uu ka sarreeyo kan kale iyo dadkii da ahaan weynaa saxaabinimada horeeyey tira ahaan badnaa waasaan xoojinaynaa buu leeyahy imaam shaafici xaggaasuu markaa ka maraya marka wuxuu leeyahay wakaana xadiiثu khamsatin أwlى an yusaara ilayhi min xadiiثi waaxid shan qof xadiidka ay soo wareyso ayaa ka mudan in la qaato xadiidka uu hal qof soo warinay marka maxaan isticmaalaynaa marka aan ku kala saaraynaa tiradii dariiqyada ma ahayn xadiidka uu hal qof soo wariye waa qariib xadiidka ay labo soo wariysa waa casiiz xadiidkii saddexii ka badan soo wariyaan waa mashhuur saasoo u wadnay sababta ay ereyadani macnaha u samaynayaan aan u adeegsanana waxaa ka mid a markay iska hor yimaad yimaada waxaan leenahay xadiidkii shan dariiq lagu soo wariyey shan saxaabi soo wariyso ayaa ka awood badan oo ka mudan in la qaato kan khilaafay ee halka qof usaama uu keligii soo warinay iyadoo weliba ay suuragal tahay xadiidka usaama uu soo warinayo in uusan ahayn xadiid dhammaystiran ee uu kala dhantaalan yahay oo laga yaabo usaama inuusan jawaabta nebigu sala allahu alay slam wixii ay ku saabsanaydba inuusan wada maqlin ee uu qayb keliya uu ka maqlay sida awgeed waan kala rajaxna waxaan leenahay xadiidka usaama lama qaadanayo waxaa la qaadanaya xadiidka ay inta kale soo wariyeen ee ah haddii waxyaalihii ribadu gelaysay ee dahab ahaa ama fida ahaa ama timir ahaa iyo wixii la mida haddii ay kala bataan oo ribal fadli ay noqoto lama ogola sidaas awgeed madhabkii cabdillaahi ibni cabaas ee ahaa ribal fadli waa la ogol yahay ee riba nasiya ayaa la diidaya aan leenahay ma soconayo sababta lagu diidana waxa weeyaan in xadiidka awoodda badan ee raajixa ah uu yahay xadiidkan kale ee saxaabada badan soo warisay iyaga ka xifdi ahaan ka sugan usaama iyaga ka weyn iyaga ka saxaabinimo iyo islaamnimo horeeyey iyagaa la qaadanaya marka sidaas ayaa waxaan ka tegaynaa madhabkii cabdillahi bn cabaas ribal fadli in la ogol yahay waxaynuna qaadanaynaa madhabka ah ribal fadl iyo ribal nasiya labadaba inaan la ogolayn marka taas tarjiixana saan u samaynayna waa taas raadinna maxaa taabica maxaa shaahid ah imse dariiq baa lagu soo wariyey dadka soo wariyey yaa tiro badan yaa xifdi fiican yaa saxaabinimo horeeyey yaa aqoon badan yaa xadiidka garashadiisa ku fiican oo kala garanaya xadiidka iyo cilooyinkiisa iyo maxaa shaada maxaa naasikha maxaa mansuukha tarjiixa markaan samaynayno waxyaalahaas oo dhan ayaynu u adeegsanaynaa si aan u kala saarno labada xadiid ee u muuqda inay iska hor imanayaan waayahay marka intaa markaan kasoo gudubno haddii aynu mid kalena soo qaadano imaam shaafici waxyaalaha uu tilmaamaya ah xadiisyada wax lagu kala saaraya waxaa ka mid a koodeebaa qur'aanka waafaqsan waxaa jira salaatul khoofka marka la tukanayo dagaal baa lagu jira cadowgii baa lashor fadhiyaa sidee loo tukadaa waa tin aayaddii suurat nisa ahayd waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macak walyakhuduu aslixatahum qaabka salaada loo tukanayo qur-aanku wuu sheegay xadiiثyana way sheegeen waxaa jira xadiiثyo maadaama nebigu sala allahu alay salam duulaano badan u aaday inay saxaabadu siyaabo kala duwan ay u soo wariyeen siduu nebigu sala allahu alay wasalam salaada u tujiyey salaatul khoofka marka haddii xadiiثyadaas meesha u muuqdaan inay iska hor imanayaan waxa aan ku kala saarayno waa aayaddan aayaddu waxay tilmaamtay in la taxadaro imaam shaafici wuxuu leeyahy qaabkii taxadarkaasi ku imanayo xadiidka waafaq xadiidkii ugu taxadarka fiican ayaan xoojinaynaa waayo xadiidkaas waxaa taageeraysa oo xoojinaysa aayad qur'aan ah sidoo kale xadiisyo waxaa jira laba xadiis midna salaada subax xilliga la tukanayo in hore loo tukado iyadoo weli aysan iftiin badan noqonin in salaadii la galo iyo xadiis kale oo hal saxaabi werinaya oo sheegaya in xoogay iftiinka la sugo in si fiican waagi uu baryo iftiin noqoto halka waxaa ka imanaysa labadan xadiis maxaa laga samaynaya imaam shaafici wuxuu leeyahy labada xadiis markaan eegno aayadihii qur-aankii baa yaalla oo ah xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa
xadiidka aayaddani ay xoojinayso ay dhinaciisa noqoto ayaynu xoojinayna qaadanayna kan kalena kaasaynu ka doorbidayna waayo aayaddii ayaa xoojinaysa kan oo taageeraysa marka markaynu wax kala rajaxayna waxaan leenahay aayadihii qur-aanka keebaa ku macne ah sunnadii nebiga sala allahu alay salam ee kale keebaa ku macne ah dadka soo warinaya sida u kala darajo sarreeyaan inta dariiqa lagu soo warinayo waxyaalahaas oo dhan ictibaar markaan samayno maxaa shaahid ah maxaa mutaabaca ah mutaabaca taama miya mutaabaca qaasira miya waxaasoo dhan ayaynu isku soo xoorinayna markaas aynu leenahay kan ayaa noo soo baxay inuu yahay ka xooga badan marka fiqiga marka la tago waxyaalaha masalooyinka fiqigu ay ku dhisan yihiin marar badan waa khilaafkan ayay ka imanaysaa ilaa madhabkan saasuu leeyahay in kalena saasuu leeyahay waxay asalka ay ka imanayaan waxaa ka mid a meelaha qaarkood xadiisyadan iyo sidii loo kala rajaxayay maaha culimmadu inay wax iska sheegayaan waxay doonaan ay iska odhanayaan waa mid walba fahamkii uu xadiisyadan ka qaatay iyo kii uu rajaxay kii ula muuqday inuu awood badan yahay iyo kii u muuqday in laga awood badan yahay maxaa raajixa maxaa marjuuxa ayay marar badan ku salaysan tahay taas ayaana u baahan in maanka lagu hayo markii masalooyinka fiqiga iyo culimmada aragtiyahooda iyo madaahibtooda la eegayo haddii soo koobno ibn xajar raximah llahu tacala wuxuu leeyahay fasaara maa daahiruhu tacaarud wixii u muuqda daahirkiisu inuu iska hor imanayo sidan u kala horeysiinayna aljamcu in amkan haddii ay suuro gasho waa isqabadsiinayna macnahoodii waa isu keenayna waan jamcinayna waa mid haddii ay noo suurto geli weydo waxaynu eegaynaa taariikhda waxaan leenahay maxaa naasikha iyo maxaa mansuukha keebaa labadan keebaa wax nasakhay keebaa la nasakhaya haddii aynan taariikh ogeyn aynan naasikh iyo mansuukh kala ogeyn waan kala rajaxayna tarjiix baan samaynayna waxaan leenahay kan ayaa ka awood badan kan kale kan bukhaari iyo muslim baa isku raacay kanna sheekh hebel oo bukhaari iyo muslim aan la darajo ahayn baa soo wariyey kan intaasoo dariiq baa lagu soo wariyey kanna hal dariiq baa lagu soo wariyey waxyaalaha saas kana macnihii aayaddan qur-aanka u dhow kan kalena saas maaha waa loogu dhow yahay aayaddii qur-aanka sunnada nebi sal slam markaan eegno waxaa xadiisyada kale kan ayay taageerayaan kan ma taageerayaan waxyaalahaasoo kale ayaan ku kala rajaxna haddii aynu weynaba waxaynu ku kala rajaxno haddaynu garan weyno naasikh iyo mansuukh iyo taariikhdoodii haddii aynu iswaafajin kari weyno uma tawaqufu can ilcamali biaxadi alxadiiثayn labada xadiidba ku dhaqmidooda waan ka joogsanayna meel baan iska dhigayna sidaas ayuu leeyahay imaam ibn xajar raximah allahu tacaala casharkeenana maanta insha allahu tacaala intaas ayuu inoo ahaanaya جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا